أبغى لودعس وأنا قلتين يا حديات مشرتين كقولين وربحين وأتقبل جمو ترسين تعرض كقريتو يده محاكي يده محبوب يده إحنا نمشي حسي حسوا عوضة تدرب ماله نبى حنين نين تقالك عدالك اللي هذا من هاي تقالك وجوتشلا هذا كوي هذا يو أنا ما قرأنا يو بلسه قبل بكرة وبعدين وتري أنا أفسمه هل كان مطلوب يو لكن إنكو أنفعره أيام فوق قبلنا يا وحنا اللي قبل اللي حي صغير ما لك كوب أنا قاوي ما تصير كوب حفظ يا مال السوق كاني حتى بعدين لو كي حلا أو كل كي قبل مريحان كان سوق وضع الله يسوق عشرة تلحي أنتوا كرتوا قاعد سنة كالين ليه هاي لليوم أنا أستغل اللجوء كرين لجونا كالمين ما كمايو قاعدين سيدا وخلصونا شريته markii ogaadeen dabka la saarayay oo adigu dagaalka hormuudka u ahayd marka kabla wax ogaadeen soo ma ahayn in kabla wax maalinka ahaa ogaadeen hadda ma iloobay adiga ahaw nin banaanka joogo dhammaan dadka ku dhex maray waxaad moodaa xilsi adigu ama hagarha ka ahaato ama ka ahaato xurmaynahaye inuu dib isu dhigay halkan hadda waxaa ay sii weydiiyey halkan aan ku duubayaa laba gabay oo nin la yidhaahdo waran leh uu tiriyey waran la gabay labada gabay mid wuxuu tiriyey 90 ilinkiis midna wuxuu tiriyey hadda wuxuu kii 90 ilinkiisii u tiriyey ahaa intii qaranka uusan weli burburin balse dhibaatooyin badan u jireen dowladan in la yidhaahdaa soo gabiyey dowladda iyo maxamed siyaadiye markuu u gabiyey kabacdi haddana wuxuu caayay mareexaan una dhaartay gabayaal buu tiriyey isleeyahay maslax iyo haddaan xooskiisa iyo laba mid gaan sheegan haddaan niman mareexaan ahaa diidin magacooda gabay saasa ayuu tiriyey waran laa gabaygaas jawaabtiisaa tiriyey wuxuu yidhi hawada beena dhul faaraxow hada fogaadeen doqontaan xigaalkeed hagayn waa hawiran tahay halilaawe maantana ka bayr hilinkii toosnaa waa kaa hilaacii u baxay hoday ma jeerteen harti waa lowsaa duul hadduu hoosgalaa yahay dhaxay habawsheen sabiin cali iyo haaruun teeri iyo hagowgani raggii haystay godaftooda heelada isaaqtumahayay hor alla moodeen la hirmaan hargeysiya burqiya haarihii mudug hawiyaha dagaalamahayo heegandarida oon hilibka daarood cismaan kala hambaynaynin awliyahanka hadamood ayay hil ka sugayaan waa kaa amxaadkii hantiyey hadimadoodii waa kaa hareeraha goday looga heeldhigay hoolaa wajeer dhaarkadoo hawlkaraa jira hawaalaha dunyadu marbay kugu hawaaraan uwiskiya marbay kaa dhacaan hibo ku saarayde xaladiya marbay kaa guraan webiga hiiraane hodankaa radeegoo baddaa hoosu caarida qoraadkii lanugaba marbaa hooya qurisaa hayinkiiya marbay kaa didaan heledaad maashaa habar aridu waa baaqataa hoga kaliileede wuu hagar la'aa waayuhu haaban jiray meele inta uu ninkii hooga baray raashin soo helayo hubsan waayey heesiga gugiya hawda karameede in gurowba soo taabsana hawdka horaymaa gabay taas ayuu u tigay aan wadahayn waxaa kale gabay waxaa xilsi iga codsaday inaan halka ku duubo aanan wadahayn bililaahi amarki waran laa tiriyey wuxuu tiriyey 97 wuxuu ka hadlahayay kala dambayn la'aanta iyo dagaalka qabaa'ilada iyo dadkii caado qoomka iyo dhaqanka deegaanada hogaamiyayaalka u ahaa oo kuwii hogaamiyayaalka ay u ahaayeen
ama yaraa ay diideen kuwii kale oo dagaal ku hayaan ilaa soonka shanaad buu ka soo hadlay soo qabiiladii ka hadlaaya waxaa kamid ahaa gurux dhirig iyo barsuug wuxuu yidhi dhirig iyo jidwaad waa barsuug waxay ka guulmeen gurux baa isaaq lagu salabay goboladiisii guda digsay iyo ciise ugu goojidaya gaxilaa qabsaday maakhir iyo guda nugaaleed garaadkii dhulbahantaa qiyaad hoos gandoobsaday waa geesa guuliya jambeel buuxa baxaya shalay geedka habar gidir saruursaca ku gulgul galaayuusku waa reer subeer gabana haystaan heeginigi gaamuro labadii geesood leh wile faarax bau talinhaya gaayaalifley nin guddoon lahaay oo dhan yaa guni rifaysaaye maandhow nin gabanaa tahee ay geliyeyne in adduun gadoon yahay iyaada saa ku garanaynin gabaygu ma ahayn intaa gabay dheer buu ahaa intaa ayaan anigu yaan ka xafiday ninka halabuurka ama abwaanka ama taariikhaystaha waxbaa markuu kuu sheekay mar walbaba wuxuu faa'iido ahaa laga helaa weligay ma maqlo labada faamil oo la yidhaahdo midna la yidhaahdo barsuug midna la yidhaahdo gurux walalaba ugaygay mariyay labada qolaan weydiiyo wuxuu yidhi gurux ciise muuse ciisay ka leexto gurux ciise qaangaarkeedu 70 qof weligeed ma gaarin ciise muuse wey waxaan weydiiyey nimanka la yidhahdo barsuug wuxuu yidhi macallin weyne laba wiil buu dhalay midna waa kan raxan weynta ah oo yurkud iyo degan halka kan midna oromo iyo ja yani qofti bay la degeen waxaa la yidhaahdaa barsuug marka dadka minoritiga ah oo wax ka dega meesha la yidhaahdo deegaanka jigjiga ayay ku jiraan waxayna yidhaahdaan waagii hore waxaanu ahaan jirnay carabkuna waa yidhaahdaa annagay ahaayeen labadaa qolo midnana magacooda ma maqlo waa faa'iida aan ka helay adwaanka halabuurka intaa ayaguna ha joogi waxaan kaloo halkaan ku qabanayaa laga codsaday gabay la yidhaahdo canjeel talawaa gabayga maxamed siyaad baan u tiriyey waxaan ugu tiriyey sayid maxamed taariikhdii inqilaabkii la oran jiray canjeel talawaa ayaan sheekadiisa qaatay waxaa la ii sheegay sayid maxamed dad fara badan oo abaal ku lahaa mas-uuliyad iyo hanti aynan malaysanaynin una soo halgelin u siiyey xilal aad halbowlaana u hayay inay inqilaabkii ka qayb galeen aad buu u qaadan waayay nin la yidhaahdo qoryow iyo nin la yidhaahdo axmed fiqi iyo nin seedigi ah oo la yidhaahdo dhacay saddexdaa nin buu ka samri waayay gabaygii la oran jiray axmed fiqi sawaaba ma helin sadaqadaysa halkaan markii la yimid maxamed siyaad ururadii mucaaradka ahaa iyo dadkii ay kala fogaayeen iyo qoladii hore uu xukunka ka qabsaday iyo aqoon-yahankii intaynan isa soo gaarin waxaa haadka u dhigi waayey intii ayaga awgood ugu nibcaa oo asagu wax ka dhigay ama magacaabay ama xuquuqayna lahayn u siiyey yaa ugu daraa yaa baan u go-ay waxaan arkay nin maalin waa xamar aan ku arkay asagoo caraysan oo la waafo maxaa dhacay baan wuxuu yidhi madaxweynahan raashinka u dhadhamin jiray waa layga bedelay meesha oo waxaan iiga madaxweynahan adduunka wuxuu u yahay inta sun oo waaqay kafan lahayd waa dhiman lahayd dad meesha ka tagtay
لا الحمد لله رب العالمين ده وشقيت تطفر قوم أو صح ووحنا كهالك كلام محمد يا تلك هكبره وضلك ومثلا عمله والله معارف كأحيب عن النهاية كويس تري ما محمد يا تلك مثل بوسط تاريخ رونس وجرين ستجي بالدكيسي هراء وصناعة سلنقول ولا متعب وصاوة سيد محمد والي عن شيء تقدر الله قولي مكي ساحرين على وبيصير بهوص إنسابطي سما بدن رجو ترى مكي جاجين سبب سير كلام النقطة مكي سيف كل الواري سبوه أنا أو كجبح صي شاهد بمدي في الليل وكيف يري إريس وجان أحمد فقي ثوابه جميل الانتفاق ضيقي لين كلامنا ثلاثة هيلقوا سلوا طلعته سوق من قرية إنه سوق يعيشون وحاول صقرا مع سلا ساعات وغيره ما أنت إيه فيات وأجيال تحل سواجي وحاسة أوجدتها مستعارة أنا الصومالي ساعة وقريولي وكاتب في حركتي وحام محمد ما جالس على لو ساعة شيء واجين بونجي ستو كيرين كري سورها وتمي كما قرقات ونطية ساتين في مجن أصلا قريها ما جالس على وصلنا له يمكن سيلة يرد كوه لا سوق عيتما وحشات في إيتي بلو سيدي يسقما مولي سرمها لك شريو مقص كسويان سما كما قرقات ونطية ساتين في مجن فتيبكي عند إنجليزي يسودي بوبان 30 كيد أو وسائل ربط اللانكي والسوريقات كي سكور سلوحة حيثا وحلو صلى الله وإنتو صامها وطوي شيء تقول عن كوكوري سحر مجاسين إنتو صينك هو إحدى وصاعا بوبحي ساعة بيصدره رضا حظي سيبوه الشياني وعصامي سيجي واحد كم لي قوة ساعدي ساحبدي التصلاح ورسولي صفية شيئا إنتو صعبي باسدي نيكي ساعة سمع الوطن باسكلي تلطو لاي كسبت فوق عقوم في أسيرتي واقع Somali dah kale, anak aku waktu sana orang yang